السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkiina Faalo. Fiidiyogan waxaan kugu soo gudbin doonaa sheeko aad u xiiso leh, ciwaankeeduna uu yahay hubso marka hore. Wiil iyo gabar ayaa waxa ka dhaxeeyay xiriir jacayl oo aad u weyn iyo kalsooni siidatay kaftan aan caadi ahayn. Sida aad ogtihiin, marka laba qof aad isugu wanaagsan yihiin waxyaabo badan ayaa dhaxmara sida kaftan badan iyo waliba kalsooni dheeraada, taas oo marba ka dambeysa sii kordhaysa. gabadha uu wiilka xiriirka kala dhaxeeyay iyo hooyadeed aad ayay isugu ekaayeen sujuud iyo sijeedba lama kala garanaynin, waxayna xiran jireen indho shareer ama niqaab qofba siduu u yaqaano. wiilka ayaa ku tuhunsanaa in maamada gabadha dhashay aysan la rabin gabadhida, taasna walwal ayay ku haysay. maalin dambe waqti casir gaabkii ah maqribna ku sii dhow ayaa wiilkii ka hor imaaday qof ula ekaaday saaxiibtiisa, isagoo hubsan ayuu ku bilaabay kaftan indha la'aan ah. waxa uuna ku yiri, naa horta maad nagala hadashid duqdan hooyadaada ah, imaba arki kartay, maxay sidaas igu necab tahay? yaxaas qaaday inaan habaara maahan si kale garan maayo. wuxuu intaas ku daray oo uu yiri, mar horan kuu sheegay inaysan fiicneyn gabar hooyadeed nooshahay sida adiga oo kale. wiilka ayaa waxa uu soo qufay wax waliba oo ka dhex guuxayay qalbigiisa, isagoo u haysta inay tahay qofta uu la hadlayo saaxiibtiisa. intaas marka uu israaciyay ayuu dareemay sheekadii oo laga qayb qaadanayn iyo indho kuuriya oo si kulul u eegaya. markaas ayuu ku yiri, maxaad ii soo kooraysaa? maduqdii ayaa kaa soo xanaajisay maantay, anigoo halkan jooga ayay dhibtay, adigoo la nool maxaad u malaynaysaa? maamadii ayaa ku tiri, eedo maxaa sidan oo dhan iigu habaaraysa oo aan kaa galabsaday? xariifkii hal mar ayaa biyo qabow lagu shubay, sheekadiina waa ay ka dhammaatay. waxa uuna ku hadla ayuu garan waayay, afkii ayaaba juuqda gabay, labadii lugoodna aad ayay u weynaadeen, meel uu taagay ayuuba garan waayay. maamadii ayaa waxa ay ku sii tiri iyadoo hadalkeeda wata, wariyaa nacas iyo fulayga ah, waan ku siiyey gabadha aad darteeda xaaska ii siinaysid ee isi soo diyaari, caawa laga bilaabo guriga iyo meesha aad rabto ayaad kula sheekaysan kartaa. waxa uu meeshii kaga tegay isaga oo leh, walle arrin ayaa i qabsatay oo la yaab leh, maanta ayaan afkayga ceeb ku doontay. haddii aad ka heshay sheekadan subscribe dhig kuna soo biir channelkeena Faalo si aad ula socoto sheekooyinkeena xiga.